Qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ismaamulka Wajeer ayaa wado dadaallo badan oo ku saabsan sidii looga hortagi lahaa weerarada kooxaha Al-Shabaab. Waxaa maanta xarunta ismaamulka Wajeer lagu qabtay kulan ay ka soo wada qaybgaleen culimada magaalada Wajeer. Kulankaasina waxaa qayb ka ahaa xildhibaanka laga soo doortay bariga Wajeer Mudane Rashiid Qaasim Amiin iyo dhigiisa Tarbaj Baashane Gacal. Kulanka oo uu soo qabanqaabiyey xafiiska culimada ee Subkem ayaa loogu hadlayay doorka culimada ay ka qaadan karto sidii loo dabar jebin lahaa weerarada arxan darrada ee Al-Shabaab ay ka geystaan deegaanada gobolka Waqooyi Bari siba ismaamulka Wajeer. Mwalimu ya madrasa na imams tumekutana leo na tumekubaliana kwamba dini yetu inatuamrisha tu kae na amani wale ambaye akue Muislamu asikuwe Muislamu, na tunasema wazi ukue askari ukue raia, sisi wote ni askari, sisi wote ni askari. Ukue safari hii hakuna kusema askari na raia, sisi wote ni askari. Ikiwa sheikh wewe ni askari, lete raboti. Ikiwa wewe ni politician wewe ni askari, ikiwa wewe ni askari wewe ni askari, ikiwa wewe ni media wewe ni askari. Sisi wote ni askari kulinda nchi yetu. marka nidaam waxaan rabnaa bulshada ay ku socon karto, bulshada ay wax galkeeda laga agaan karo. marka nidaamkan u socono waa nidaamkaas, nidaam wacyigelin ah, nidaam kicinta bulshada ah, safadii looga hortagi lahaa Al-Shabaab. waxaa kaloo ku talagaleynaa tilaabo qaadka la qaadaa waa tilaabo home grown sida af Ingiriiska tilaabyaal annaka qaas noo ah maadaama aan wadaninahay nidaamkii looga hortagi kara security kala xukumo filan dawladda Kenya iyo askarteeda kala xukumo filan. laakiin waxaan aaminsanahay kalsooni ayaan keeni rabnaa wadaniga iyo dadka wadanka ku nool iyo askarta iyo dadka ciidamada sita oo ka shaqeeya ammaanka in aan ka dhalina wanaag iyo heshiis iyo kalsooni in aan ka dhalina ayaan rabnaa. Weerarada Al-Shabaab ay ka geystaan deegaanada ayaa waxaa gebi ahaanba ay curyaamiyeen waxbarashada iyadoo ay xirmeen dhowr iskuul halka dhowr macallimiinna la waxyeeleeyay. Ugu dambeyntii weerar maalintii shalaytu ahayd Al-Shabaab ay ku qaadeen mid ka mid ah baasaska isaga kala goosho degmada Qorof Xaraar iyo magaalada Wajeer uu ku dhaawacmay macallin wax ka bari jiray iskuul ku yaalo tuulada Qarsa ee dhanka bariga Wajeer. Kutulo Girls Secondary School, Kutulo Primary School oo laba stream ah, Kutulo Girls Primary, Macdaade Primary, Wargaduud Primary, iyo Qajaajatu Primary. intaasba macallimiin baa loo leeyahay. marka waxaan rabnaa in macallimiin sidii lagu keen lahayd degdeg ay dawladda ay ku keento. maxaa yeelay uma guuri karna Al-Shabaab dhulku. anaga Soomaali ma joogno, Kenya aan ka xisaabsanay oo Soomaali uma guurin. ma dhihi karna dadka dana meesha ka soo guur u banay Al-Shabaab dhulku u banay ma dhihi karna. marka waxaan leenahay dawladda idana service-ka ha geysa, macallimiinta ha geysa, kibaandiga ha geysa, wixii mashruuc oo dawladda ay leedahay ha geysa. maxaa yeelay dadka waa si riixaysa. cunuga dadka baan u diidan dasgala Al-Shabaab asgala haddii تعليم معلمين أزودي دوز أسأل أما واي أسيس الدسقلة وحسقلة هذا Al-Shabaab. marka sababa ajir idan keen haya hadii la dhahato nimankan gacan ay keenayeen marka dawladda idateedana ka hortagta jirta in aniga maanta wax ay qorshanato ma jiro. dawladda Kenya wixii dadaal aan marnina waan u gacan saartay aniga maadaama mudanaha aan nahay wadaniga aan nahay reer NFD aan wakiil ka yahay qaas ahaan magaalada Wajeer aan qaas ka yahay waxaan geynay ra'yigaasayto oo lagu taageera ana aaminsanahay in looga jadbixi kara dhibka macallimiinta soo gaaray maalin walba. waxaan dhahnay affirmative action in ay dawladda ku qorto macallimiinta D+ C- ay qoraan ayaan isku raacnay affirmative action maalin walba la ogol yahay. constitutionka Kenya ayaa ogol. waxaa dhacday macallimiinta ayaka 3,000 oo dhalinyaro ah oo D+ haysta inay jaamacado galaan college ay galaan. dawladda Kenya oo Uhuru Muigai Kenyatta as madax ka yahay ayaa haddana lugta ku dhufatay macallimiinta ayaka. soo ma gaar anakan waxaan aaminsanahay arrintaas in looga jidbixi lahay tiideed waxaasna raacay inuu leeyahay haddaan D+ aan ka dhigna teachers training college ay ka baxaan oo P1 noqdaan quality of education-ka iyo qiimaha uu leeyahay tacliinta ay yaraani raayintaas ay iska dhaliyaan. laakiin su'aasha aan weydiina waxa way dadka mas'uuliyiinta ama wadanka xukuumadda weydiina waxa way war quality education iyo quality laan ya ron
quality-gaan haysan maxaa waaye war hadda oo D plus E aan haysan 3,000 oo D arday aan joogno ilmo 12 sano la baray raasimaalkeen uu ku dhamaaday hantideena uu ku dhamaatay wixii waalidka uu sugay ii hele 3,000 ay yihiin war quality education aan haysan maxaa waaye su'aashan isweydiin maxaa xildhibaanka laga soo doortay bariga Wajeer ayaa sidoo kale difaacay in la qoro waxa ay ugu yeeraan macawiisley isagoo ku nunucsaday in ayaga kaliya ay yihiin shakhsiyaadka fahmi karo qorshaha kooxaha Al-Shabaab. Xildhibaanka ayaa u mahadceliyay madaxweynaha dalka isagoo ku ammaanay dadaalada badan ee haata u muuqato kuwii ugu dambeeyay ee lagu doonayo in loogu xureeyo Al-Shabaab deegaanada gobolka Waqooyi Bari. horta midda jirto waxa waaye muhiimadu waxa waaye horta hubka nin aamino inuu gacantiisa ku jiro nin la aqoonsiyo inuu gacantiisa ku jiro hubka iska sii ama shacabka iska sii ma aha dhacdooyin badan ayaa ka dhici karta shacabka dhexdiisa ama dana kale ayaa la isku gafi karaa shacabka dhexdiisa laakiin midda ay dawladda inay aqoonsado ku habboon waxa waaye la sharciyeeyo hub la aqoonsan yahay cadadeedana la ogsoon yahay dadka loo dhiibana la ogaaday shaqada loo dhiibana ay Al-Shabaab kula dagaalaan nidaamka aan doonayno waa nidaamkaas ma aha shacabka dhamaala oo ama dadka reer miyiga oo dhamaala ama qabiil noqoya ama deegaan noqona in la hubeeyo ma aha marka midda aan anaka naftankeena inaan isku dayin aan rabno oo naftankeeda dawladda ay naga walaado waxa waaye duul yar qiyaastoodan la ogsoon yahay oo maryoolay ah oo shacabka ah oo dhulka ka bixin kara in la raadiyo nidaamkaas waa laakiin dadka wixii qaba in bulshada dhamaalo la ciidameeyo ama la hubee taasay mid aan isku raacsanna maaha mid la isku raacana maaha dhibka kale oo ay keeni doonto aan ba hadana ka badan laakiin waxa la rabaa nin Allah ninkii hub leh qiyaas la ogsoon yahay oo la sharciyay oo numberkiisa la ogsoon yahay inta maqaasiin uu hayna la ogsoon yahay inta la rabaa inta Culumadiinka ka soo qayb galay kulanka ayaa aqbalay in muxaadarooyinka ay ka bixiyaan masaajidda ay uga hadli doonaan waxyaabaha diinta Islaamka ay ka qabto in la gumaado dad aan muslimiin ahayn waxayna sheegeen inay la wada shaqeyn doonaan laamaha ammaanka sidii loo heli lahaa macluumaad horseedo in la yareeyo weerarada Al-Shabaab ay ka geystaan gobolka Waqooyi Bari. Xasan Nuur Cilmoge,